sharaxan hadda naga daayay farmaajo waa bilaabatay already waa soo dhaweynaynaa codkaaga iskale ra'yigaaga iskale waa mabda'aaga waa fikirkaaga waa xorkaaga waa dalkaaga waa qiyamkaaga waa sharaftaada waa aragtidaada you caawa waxaa la yidhi one man wofood waa la diiday you express yourself qor call waa idinka qabanayaa taleefonka waa dhacayaan noo ballaariya galabta shargareeya barnaamijka waxaan kaloo si toosa uga daawanaysaan bartayada youtube-ka fikirkiinana waa soo dhaweynaynaa musharaxiin badan baa sharaxan madaxweyne hore xasan sheekh maxamuud ra'iisul wasaare hore allahu mustacaan xasan cali khayre madaxweyne hore sheekh shariif sheekh axmed cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ninkii codkarka balada ahaa rag badan baa sharaxan runtii oo tiro badan you codkaaga ayaan ku weydiinayaa aragtidaada waa la diiday madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu rabay codka inuu shacabka ku soo celiyo waa laga diiday now you have an opportunity to express dareenkaaga iyo codkaaga soo daa farmaajo ayuu yiri axmed muuse cabdirasaaq wuxuu yiri farmaajo cabdirasaaq aadan wuxuu yiri farmaajo sihaam waxay tiri farmaajo wuxuu yiri farmaajo wax kale waxaanu mar farmaajo wax kale aan dhaho ma aqaan farmaajo mid kale wuxuu yiri yaa kale warba maalintiin naga daaya waxa loo malaynayaa inaan tashanay oo isla ognahay oo anagu meel idinku ballansaday naga daayad musharaxiin kale xoogaa cod siiya nimanka sadaqa jaariya idin noqonaysaa qofka ugu horeeyaan qaadanayaa هلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدنيا ولن باكو مغليسة صاحب سولو مشرح هذا ربتيد إياه هل سبب أدو كوبية سيان فرصة سينو ولا لها كله. هذه بعضها ستة بقعوك إبراهيم وحكاسه وعيا نيوزيلاند ما قرأت. نيوزيلاند أيه يا تصير هاي العد كاجا عاوة دي اللي بقوله. عد كاجا وحنسيني يا مدحوينها الصومالية محمد عبد الله فرماجو. Tell me one reason why. sababta waxa weey qabkii Soomaalida Soomaali afka alla kuma gooyay aad baad u mahadsantahay qofka ku xigaan siinaya waa imaaraad waa wiil yar oo kiyaala qaba waa ka go'ay wuxuu yiri qabkii Soomaaliyeed buu soo celiyay letarka caawa soo baxay ayaa kamida waxyaalaha aan la jariirooda qabka soo celiyo inuu wadan kale isku dayo inuu jilaafeeyo dawladda federaalka Soomaaliyeed la tarka caawa soo baxay waxay farjirjir ku tahay nagala tag dhacad adba adiga iyo we are coming to Somalia tomorrow so that we can talk about the issue of the maritime so that we can also discuss the issue of Mira our foreign secretary honorable Chuchu is going to yeah warmaqlaysa waxa ku hadlayeen ilaahay ninkii press release ka sheegaya tomorrow so that we can talk magaalada Muqdisho xurmin gooniyan siinaya وأنين قضية عيال كحافظة أبا سولو مقعاقا ياد عدكاقا سين لايد السلام عليكم ورحمة الله محمد كورن وكا قاضي وسوكو بيسا مقعاقا يعدكاقا ياد سين لايد يسبب مولا المقعي وحالي ذا محمد عبد الله كل باربيري وحنسينا يا عدكاقا أبي محمد فرماجو أب محمد عبد الله فرماجو مدية حرية هذه أدبض ما سنتا هل سبب نور راعي waxaan sababtay tahay walaal waxaan joogaa gobolkan hadda gado waxaan ka imaaday qurbaha waxaan dareemayaa inay Soomaalinimada oo wallahi aniga I was born in Somalia waxaan ku koray qurbaha yes last 20 years hadda imaaday waxaan dareemayaa alisa Soomaalida inay dad noqonayaan ciidamada arka markasta xuduudka sii aado dhinacaan ilaa oo ka imaado wallahi Soomaali meel kasto yes aad baa maadsanta Soomaaliya hanolaat we love you too brother aad baad u mahadsantahay Soomaalinimadan ku siiyo yiri qofka ku xigaan siinaya waa nin dhalinyaro oo magaalada waa ka go'ay I'm sorry inaad ku soo noqonayso ujeeda waa ogaay telefoonadu waa badan yihiin taxiyada wada baran waxay tiri waa farmaajo fartuun Cusman waxay tiri waa farmaajo adna waxay tiri waa farmaajo adiga qaadka kuuga waa farmaajo madaxweynaheenu waa farmaajo anu waxaan u cadeynaya farmaajo Cabdirasaaq Cabdiweli wuxuu yiri farmaajo naga daay ciyaarta baa fiiriya bahasha xataa xoro 4 point xataa maaragtay xogaa odayaasha mar u dar xasan cali khayre nin baa soo galay waa Fayaad Ismaan yes ra'iisul wasaaraha hore hal cod buu haystaa naga daayad 700 buu maraya farmaajo CC I want to
siiya xasan sheekh maxamuud ilmaha reeran laga daayade sheekh shariif raggani meel dheer bay waddan ka keeneen xoogaa sadaqa jaariya idin farmaajo buu yiri axmedna saadiyana waxay tiri farmaajo mudane madaxweyne buu yiri cabdiweli axmed warsame beent war naga daayaad sandus waxay tiri adeerkay baa sharaxaya deni baan basiinayaa bay tiri farmaajo buu yiri waa farmaajo bay tiri mid kale maxamed hadda kaba gaara ma teleefanada qabta ma idinkaan akhriya ma qoladaan la hadla naga daayaa dacayaar hay waaline keena musharaxiin kale waxaa loo malaynayaa inaan ku shubanaal loo malaynayaa Gusha. Imada, you can come tomorrow to Mogadishu, but you think you are going to take the sea? Then think again. Think again, Kenya. Gusha. waxaan qaadanayaa number ka soo wacaya hadaba yaan qabtaa mid markaan qabto mid baa galaya هيا تركيا وكجرتا صاحب كسعو مسوا سعودية هلا magacaaga meesha ka soo hadlays حسين صاحب soo dhawow yaad u codayn lahayd haddaad caawa cod heli lahayd iyo hal sabab noo sheeg ani farmaajo u codayn lahayd sababtana waa dadka kale iyo musharaxiinta kale marka loo fiiriyo ka wadanisan yahay waa ka wadanisan yahay thank you very much ودني إنه يهنا عاه ورقد وصوص سارة كعيسى مقالة مقدشة أنا فرصة سيان ربع لين قضية سوق علي أهلا وسهلا صاحب عليكم السلام أبو غريمر مقدشة سودو صاحب عاه عطها الله هنا دياسين لهاي نيو هورتا مقدشة عاه عيار كلها كسعته والله صعنا أنا قلفت إن عيارت هالكارن كديلو هاينا عد كيات سين لهاي عدك waxaa lahay laacibka madaxa goosha ku dhaliyay 79 daqiiqo ciyaarta ugu dambeysay farmaajo محمد عبد الله فرماجة آد دا Soomaaliya way walwalsanayd dadka waa walwalsanaa aniga waa walwalsanaa the fish the kalluunku waa walwalsanaa the coming tomorrow last minute buu yiri si xabadka inta ku degsaday bash la ilaaha illa allah محمد عبد الله فرماجة wuxuu yiri Sheekh Shariif Xasan odawaa wuxuu yiri Sheekh Shariif Sheekh Ahmed saas iga dhahday nimanka Xasan Cali Khayr hal cod Sheekh Shariif Sheekh Ahmed soo wada hadda soo kiciya taageerayaasha Khayr yaaway waa farmaajo kan kalena waa xamdina waxay tiri waa farmaajo qofka kaliya umada badbaadin kara waa farmaajo musharraf baleen waxay tiri waa farmaajo mo hay wuxuu yiri waa farmaajo maxamed ahmed khadar wuxuu yiri waa farmaajo maxamed wuxuu yiri waa dani musharaxnimadiisa wali ma hayno ma sugna sundus waxay tiri qofka Itoobiya laga helaa ahay fardu waxay tiri waa farmaajo naga daayad dadku waxay u maleynayaan inaan isbalansanay oo arrintan ay rigged voice tahay bal Minneapolis iyo American aadayna qofkaas hello salaam alaykum ها walaalkay caaw hadaad cod lahaan lahayd yaad siin lahayd hal sababna noo sheeg waxaan siin lahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame inuu cod kar yahay anaa kaaga marxaatiye maxaad kale ku doorat waxaan ku doortanay hawaanin Soomaali ah hawaanin laga gardaran yahay hawaanin dalka wax u qabanaya hawaanin la yaqaan aad iyo aad do you like fish kalluunka ma cuntaa هذه هذا كل صلاحية الآن بومات سيء هاي وعرون عبد الرحمن عبد الشكور وعنين عد كره وعنين بلاءه وهاي عد حق مولية هل عد درشدي هرب الله بو هلي وهاينا هل كان عفا شيخ شريف شيخ أحمد بن سكرية هنونا محمد بيلكا وحير ودني بيلكا واقو سلامي دني واسول وين مشرح النمدي سوي لنا ما فافين وفرماجو أبشر وحير وفرماجو أحمد وحير وفرماجو ميربيلا وحير وفرماجو أيام إبراهيم وحير وفرماجو بلدت كان إذا آخر يدينكم ما نجا بلسنا ورنا جت هنا والني بقى وحيل وكدري وحنا لو ملاينا يا مسوق ماشق إن كشورنا لو ملاينا نجد دايان نك اسكت إنه بريت انتهي ماذا بدل الله صحيحه تنجا جاي بريس ريليس بقبتين عاوة وحيلين عاوة فورنا سكرتي هنا ربلا كموتشو كجوتشو وعيدا مرة بينا شاكي is attending a meeting high important meeting tomorrow in Mogadishu so that we can discuss the issue of maritime in our brotherhood neighbors with Somalia and many other issues
and we are hoping the issue will be solved within the African problem, African solution, so that we can develop the relationship stronger. caawa warqad lagu soo saaray la yiri waxaad lagama hadli karo hadda Kenya waxay leeyihiin why are we going, why you are wasting money after nobody even is gonna ilaahay yaqaan wallahi waxba ka dhacay naftii baan ugu soo noqotay waa Malaysia baan u maleynayaa warada kale helaa telefoonkaad Malaysia halo waad ku jirtaa assalaamu calaykum Malaysia codkaaga ayaad siin lahayd iyo sabab tell me what you gonna tell you codkaaga caawa ayaad siin lahayd haddaad cod haysan lahayd sababtana ii sheeg anigu codkayga waxaan siin lahaa Saciid Cabdullaahi Deni ama Puntland kamaan la hadlin dawladda federaalka ka hadlin dawladda ninku waa musharax bas markuu noo sheegaan ku daraynaa musharaxnimada ilaa iyo hadda lama bayaamin aad baad u mahadsan tahay Deni waa soo dhaweynaa odag waa salaamaynaa aad iyo aad baan kuu salaamayaa war adeerow nabaday iga bax telefoonka ilaa haddaa taqaanid dad badan baa sugahaye ba'a cashaluulay biyo xagee marayn marka nimankii caawa inay baaqdaan baa laga yaabaa Columbus Ohio waa magaaladii barakaysnayd oo aan u socday halo salaamu calaykum reer Columbus Ohio waa idin salaamay doorashada waa la socotaa xaaladaha waddanka waa la tartamayaa caawa haddaad cod lahaan lahayd yaad siin lahayd saaxiibow dalkan xaalad adag buu ku jiraa cidda badbaadin karta waa garanaysaa madaxweynaha la soo tijaabiyey hatida qaranka ku baaba'ay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mar kale iyo cod kale hal sabab oo aad ku dooratay sheeg niyo shaqo badan baa la soo qabtay dalka meel fog baa laga keenay isbedelka ciidamada lagu sameeyey hanaanka qaranka difaaca madax banaanida waxa aan soo marnay dalkan aad iyo aad baa mahadsan tahay telefoonada ay ugu badan reer Columbus Ohio ugu salaan aad baad u mahadsan tahay waxaan qiraynaa aan hoosta ka xariiqaynaa Farmaajo waxa la yiri dil hadaa rabtid laakiin gartiisa si waxa hoosta laga xariiqay oo kritigiyada ugu waaweyn oo asaga ka soo horjeeda ay cadeeyeen inuu yahay aamin aan dhunsan hantida waddanka intii madaxyaashii hore iyo madax hore dalka soo martay ama wasiirada ahaadana madaxweynayaal ahaadana ama mas'uuliyiin noocay raba intay ay tagalayeen oo guriga dhisanayeen oo maal tabcanayeen ninkaani wuxuu tabcayay stadium taalooyin xafiisyo institution dawlad mushaar aamin ilaahay idinkii weeye aanu dhexdhicin oo ka qatan ammaanada ku fiican qofka ku xigaan siinayaa Deni waa musharax buu yiri ninkaasi Farmaajo buu yiri Cabdixafiid ragga Soomaaliyeed qoraal badan ma akhrin karo Farmaajo guul buu yiri Jamaal ladada farxiyana waxay tiri Farmaajo yaa kale he Farmaajo aniguna waxa tiri Farmaajo Sahra Calina waxay tiri Farmaajo waxaan akhrinaya halkaan ka akhrinaya it's not my fault hadinaan u ducodeyna naga daaya hadde ba I want to hear Xasan Sheekh Maxamuud naga daa ciyaarta xoogaa sadaqa idin noqonaysaa afar markaad ku tuurtaan nin siiya naga daaya wuxuu iyagu ciyaaraha deel ka dhigteen haddana Farmaajo Julaaqna waxay tiri Farmaajo Sharmaarka Axmed Sharifna wuxuu yiri Farmaajo Cabdicasiisna wuxuu yiri Farmaajo Yaasiin Jaamacna wuxuu yiri Farmaajo Axmed Xasanna wuxuu yiri Farmaajo ibn waxay tiri Farmaajo wariya Ilaahay yaqaan waa Farmaajo xaradu waa wada Farmaajo dalku waa wada Farmaajo madaxweynaha soo socda waa Farmaajo Cabdiyar Cali wuxuu yiri Farmaajo Qandar waxay tiri Farmaajo come on guys come on naga daaya ilmaha reyaal naga daaya ba inaan ballanaan naloo malaynaya hawaye war u yeera taageerayaashii rag badan baa Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihi soo shaqay Shariif Sheekh Axmed suma wallahi inaan sidaan la iska yeel meeya Xasan Sheekh Maxamuud naga daayad ba waa la isku baabaya sidaan igu yeera telefoonada waa idin imaanaya ii kaadsa ergadii hadda degdeg breaking news laga yaabo inay ka baaqdaan safarka Brito so that because of the letterka uu madaxweynuhu soo saaray ayaa hadda Twitterka Kenya why are we going there after this letter come out obviously we are not going to win why are we wasting resources aad ba arintaas looga hadalhayaa barta Twitterka Kenya
hadalhaynta ugu badan bay caawa tahay maxaa laga doonayaaba haddii hadde wixiiba nin baa ku cayaaray afka alla kuma gooyo dheh caawa waran buu saas nooga siibay waxay dheheen we are going to attend the meeting so that we can talk and discuss the issue of maritime with our brothers in Somalia nacala idinka iyo brotherki waryaa ilaahay yaqaan marka waxaas ma jirtaa la yiri jala maxamed cabdullaahi farmaajo waa yaqaanaa isaga weligiisba inta u aamuso saas dhaho 89 markay marayso dhac inuu gool nafdara ku dhalay waa yaqaanaa mucaaradkii xataa caawaya bal u sacbiyey waxaan maqlayay musharaxiintii rag badan oo ka mid a oo waldan ku leh maaragta barahooda facebook hambalyada inay u diraan waa mudan tahay haye codadkiina akhrinaya qulubta shacabku waa farmaajo axmed yaro wuxuu yiri waryaaya waxba ma idinkiiba igu soo noqnoqonaya magacyada waa cusub yihiin cabdullaahi cabdulla ma arkin hore waa farmaajo maldooda farmaajo ifraax waxay tiri farmaajo tiim farmaajo idinku farmaajo nagala taga naga daaya naga daaya rag badan baa sharaxa waxaa ka daaya ciyaarta inaad idinkana waa idin salaamaya aragtidiinana waa soo dhaweynayaa samar waxay tiri waa farmaajo maxamed wuxuu yiri ilaahay yaqaan ya war muxuu yiri naga daaya hadda ilmaha rayaalow naga daaya ya wuxuu yiri haye axmed wuxuu yiri waa farmaajo maxamed wuxuu yiri waa farmaajo waa idin siinayaa taleefanada ii kaasha waa idin soo socdaa bear with me miss calls ba hadda idinkii baa digada isaga dhigay bahasha kale hela bahasha ma qaban kara anigu haddaad laynka jam ka dhigtaan inaan damiyey noqonaysaa xagga qoraalka ku wada كل آدم وحي يري فرماجو ورادو ولا قرما فرماجو waxaan isla codka odaga dani buu siinayaa kilo waa ku salaamay shamsa waxay tiri farmaajo aduguna axmed faarax ayuu wuxuu yiri farmaajo qaali waxay tiri farmaajo kacday jabtayo faqatay كلجي كسر لها وقتك ورنا ودينا هلو مقدشو سلام عليكم كذا أنا كاقبته تاجرياشي عبد الرحمن عبد الشكور يا حسن الشيخ محمود بابا أنا هلو سلام عليكم وكقاي الماريالو صوّع رجع جارسية ميدينكي ريال نمدي نولبا واحد ماشي يفرفلي I wanna hear فيوزك أركتدا بابليكا أيان ربع سيسمن إن أنا مغلو سيداني ونوجاي فرماتشو ب 80% شعب كتاجرين سينو هايستو لكن سيداني وبقول كيما بقول حق معها مركا وحبا قلدن ما يجان كومنتيك قرين وربل أنسينا تلفون هذا وركنا وايو ورها السلام عليكم كقاي أدبا وحماي قدكو وجام سي بي بي دا بان ويري نابيري واي لفتك وير لفتك فرماجو لا عدكيغا وا فرماجو قرال دير ما اخرين كرو استان waxa iska leh farmaajo ay xaaji warsa waa ku salaam free Minneapolis all the way codkaaga ma hayo hello waxay tiri farmaajo ibal wuxuu yiri farmaajo naga taayad shariif sheekh ahmed ninkaas uu coday isoo qaba ibrahim xaaji maxamed yusuf wuxuu yiri shariif sheekh ahmed saasa in ka rabaa come on guys xabad siiya waa sadaqa idin noqonaysa hawlbaysi meel gaareen waa isku farmaajo codkaygu waa farmaajo buu yiri ninkaasna abdullaahi ahmed wuxuu yiri waa farmaajo xaaji warsa waa ka qaada صاحب فرماتشو والكم باك بير والميديكي بقى يوصل نقلقنايا عمجة إسقو كوم بقى أحمد عبد الرزاق صوفي ما هو مقاعي عصب وفرماجو أيان لو وحير وفرماجو ابن خشور وحيتر وفرماجو أحمد وحير وفرماجو حس ورسوي وحير وأبوكا يس بوس ومقدشو هلو سلام عليكم
aad baan uga xumahay waa qadka whatsappku waa aad buu jaam u yahay cabdiraxmaan wuxuu yiri waa farmaajo viva farmaajo waxaa la ii sheegaya galabta inay qoladii the head of mira farmers association afhayeenka beeraleyda qaadka inuu yiri diyaaradda qaadka ergada qaadaysa madaxda oo kenya diplomatic flights so that nobody cid baaraysa ma lehe xoogaa qaada aan ku rarano arrintaasna way isku dayeen waa qolooyinkii jarmalka alo salaamu calaykum kala hela hadda teleefanada waa ku soo wacay hadda maxaan qabtaa teleefanadii waa waasheene farmaajo saaxiibayaal aragtidiinaan aruurinayay codku waa 90% waa farmaajo 5 more minutes baan sii siinaya aan komanada akhriyo maxamed faarax boos wuxuu yahay farmaajo raaqiya waxay tiri waa farmaajo abuukar igada qoraal badan ma codkayga labaad waa mudane xasan sheekh maxamuud buu yiri ninkaas abshir cod labaad haddaan la أحمد سيروق فارح وحير وفرماجو 4 more years فرماجو دكتور هي نور أحمد وحير وفرماجو قلنجدا عيدا وحيتر وفرماجو ريتامبر أو لن ترفيزي كاي كيسيل تامبر لايست فنها سوما لايست كفريت يا هاوسكا كيسايا أورينكا بايستايا hadda idin salaam rafila la fahora islayn farmaajo ayay iyaguna dhaheen magaaladii isku duuban oo tambare farmaajo ayay dhaheen xafso warfa farmaajo ayay dhaheen farmaajo forever joy ali forever ma soconaysa naga daaye ninkan hadduu 4 sano kale uu naga saaro minuskan naga bixiyo intuu hadda qabto intoo kale hadduu noogu daro waa ilaahay xamdigiis marka العددكيني وارجستر قريني وانا ببلش قريني ادي اد بعد ما تنتين ميلاد جوجتان با كينيا عاوا نربحها يا كل عضي we are going to attend a meeting with our colleagues so that we are going to meet our counterpart the Minister of Foreign Affairs for Somalia and we will be discussing openly and brotherhoodly the issues of maritime so that Africa can learn how to solve their problems without the intervention of ICJ. تقلش الو السلام عليكم لا اله لا اله الا الله اسكو فرفره marka arintaas labar jabba ku dhacay aad baan uga xumahay runtii taleefanka waa totally jam weeye marka ma wada qaban karo waan ogahay inaad isku wada dayeysaan laakiin textigan 5 more minutes siinayna xamdi xaashi waxay tiri farmaajo qadaafi wuxuu yiri farmaajo قمة واحد تري فرماجو يوسف وحو يري فرماجو هونوربل عبد الله محمد يوسف وحو يري فرماجو خضر وحو يري فرماجو keep dreaming ددل وحو يري فرماجو سينب واحد تري فرماجو I am reading waxa ay dadku dhaheen it's not my maaha haan rabaa inaan maqlo rag badan oo soo shaqeeya come on بالك هنجا قربيننا وحنا حتى ما عرفت this is وقلبي ور أتكون كد ليسان نيد كتشي ليسان مشرحين الصوماليين هداتين شعب الصومالي سيدنا ما قبضته رجع وإلى حبت ما عرفت نيد وليس ما حي يقولها الله إيماني أنا دي عرفتي إن سيدنا تاي إن وحنا إذا كبرنا يا واحد عاو عد يصير إذا كون كبضن 99% إن هذا هيدن فرماجو now let's take the next step سلطان كاغا حلبان كاغا سو صعده influence با لهدا كرامه الهي كسي لا هذا كل يرجلي ابراهيم با يمد حرسي او يري خير يا عدينيا ونن بلا سو شقيي xeer badan buu leeyahay runtii door badan buu ku leeyahay wax walba ay nabadii nolol qabto 50-50 weeye ninkaas xasan cali khayre codad badan waa u qalma laakiin malayma farmaajo buu yiri ninkaasina taabid abdi maxamed buu yiri masharax ba asna yusuf maxamed waa farmaajo yiri qoraal dheer hadaad soo qorto aday ku taala ma akhrin karo muna yaasiin jaamac walaashay Stockholm waxay tiri farmaajo halkan qof baan ka qabanay hello assalamu alaykum hello Sweden وكحمايد بالكي جنب النقطة أبشر بوي وحير فرماجو أو حس بلا وحير فرماجو نقد عيد واو this is a قلبي ور
iyo niyad jab iyo dharbaaxo iyo farajirjirka aad ku wadaan musharaxiinta kale ma qabatanimayo naga dhaafa aad baan idin salaamayaa meelaad joogtaanba intaasaan kusoo gabagabeynayaa warkiinu waa cad yahay waxaan leenahay kii ka saari lahaa waa kan aad iyo aad waxba lagama qaban karo waa mar kale intaan isaga imaanayno waxaan leenahay insha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala dalka noo hagaajiyo danta iyo dadka iyo dalka hadii ay ku jirtana ilaahay noo soo celiyo maxamed cabdullaahi farmaajo mar kale iyo farmaajo dhahdeen caawana intaas ay ku soo koobaya adeeran jiimka iibid بقر مركز تكلان سوقل I'm still exhausted مركا انتا كبدن ما وذي كرو نرجع يديدن وركي نواد عدايسن انتا سيد كوسو كوبيا انتا كانوا كل من دونه وولالكين waxaan leeyahay aad baan ugu faraxsanahay iska daa qaad iyo badbad iyo iska daay in inta yimaadaan birita laga hadlayaan ka wada hadallo habdhaqanka askartiina amisan ku jirta goormaad la baxaysaan intaan kale kulmi doono khayr iyo barwaaqo iyo abshir baan kaga tagayaa insha Allah ilaahay isaga garanaya danta dadka iyo dalka iyo Soomaalinimo iyo walaaltinimo iyo abshir iyo khayr iyo baraare ayaan idin rajaynayaa meel aad joogtaan dalka iyo dadka u duceeyo qof walba idinka ka mid oo isku xilsaar hal boog oo Soomaaliya ku taala inaad dhahdiyas aniga ilaahay baa karaamo iyo isiiyay iyo qofnimo iyo aqli iyo maskax iyo juhdi iyo muruq waxaan isku dayayaa inaan ka qayb qaato sida aan boogaha Soomaaliya ku yaala oo dhaylaha mid kamida hadaad meel dhagax ka qaado Soomaaliya dhistay hadaad qof wax tarto Soomaaliya dhistay hadaad wanaaga buuriso Soomaaliya dhistay hadaad farmaajo taageerto intaas ayaan kaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa inoo balana insha Allah mar kale iyo barnaamijyo kale hadii alla idmo aragtida dadweynahana intaas aan caaw ku soo koobeyno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu